waan islaamay walaalayaal meel walba joogteen kusoo dhawaasha. haddii aan ugu jawaab commentia horta meesha igu wereerisa wuxuu igu wereeriyay qofkaas warniyo ninka odayga sidaa iskugu laabateen noo soo sheeg ya saa macarta hadda nin weyn oo gar leh oo garka cirada kasoo ku taalo ya ma arkaysan garkayga ciro in leedahay waxaa la yiri hadday garka ciro kaasoo baxdana da kuma harin cirada madaxa waxaa la dhihi jiray mugta waa ciro caanooda laakiin cirada garkaaga waxay tusaysaa da-da nin rag oo garka ciro ku leh maarata inay hadda uu kaaga sheekeeyo laba nin oo isruminayso laba nin habo macaana waan ka jeclahay boinsalaama ya barka waa ceeb haweenkaba ma ka hadlaan taas ya haweenkaba ma ka hadlaan saaxib aniga maxaa inta kusoo fadhiisto kamera soo hor fadhiisiyo ya inaan ninkii saas buu yiri waan ku jeclahay salaamo aniga waa u soo laabtay ana ordaayo inaan kula soo fadhiisto miyaa meesha rabtaa ya markaa taas waa kaa diida ceeb waay ceeb kowde horta adiga inaan nin qabo mise inaan nin isqabno yaa caddayn karo qof ilaahay untoo caddayn karo mala qof odayga indha saaray waa laga yaabaa inaan sabir kugu soo qabto qof iska socdo ya wuxuu ahaado uu ahaan kara ninka inaan u shaqeeyo aan shaqaalihiis ahay oon gurigiisa la joogo oo asaga aan u shaqeeyo hataa ma ogedin waxaad ogtihiin mala anigu waxaan afkan iga sheego maad ogtihiin ma ad ugu sabirteen iska keenaya kowdhe taas haddaan ka gudbo waxaa raba meeshii taariikhyo badana horta hooyadii aan la soo maray marka taariikh mid kamid ah ayaan raba inaan iga sheekeeyo markaan yaraa waxaan ahaa ilaa hadda waan jeclahay mamacaanka aad baan u jeclaa waxaan ahaa ilmaha mamacaanka jecel marka ilkaha ayaa idibi jiray ilkahayga mar walbo goos baan aada uga sheegeyn jiray marka mamada hooyadee marka ay habeen walba aan dhafrinayo oon leeyahay goosa ay xanuunaya aan iskuulka u gooynayo iskuulka balaayo kale aan ugu goyn jiray laakiin gooska markay igu darsantay excuse fiican aan helaba baa waxay tiri maamo waan kugu daalay maanta dhakhtar baan ku geenaya dentist aan ku geenaya gaaris ninkii joogaa garanaya dhakhtar gaabano hindi ah oo raja filimka raja maduru dugsi aabaheed ayuu eegahay ninkaas uu eegahay waa nin gaabano hindi ah wuxuu leeyahay private wuxuu leeyahay oo dentist private ayuu leeyahay istaalka weyn oo markaa gaarisna uu ka shaqeyn jiray marka waxaa aniga igu qoflantay oon ka war helay ninkan waa xasid markii aad istaalka caadiga aad ugu imaato waa xasid ilkaha si fiican kagama bixinayo wuu kugu jebinaya balse hadaa privatekiisa aado gooska si fiican kaaga siibayo mise iliga si fiican kaaga siibayo sababta taa wuxuu rabaa inaa privatekiisa aado oo lacag ka bixiso anagan hadda xoogo dad iska fakriyan nahay istaalkaas umaan aadi jirna istaalka markaan aadnay adduunyada waxaa ugu nacbahay ul liigu dhufto carbada liigu dhufto goos haba sheegin ba xaggaasay jirtaa dhakhtarkaan markaan aadnay markii ugu horeyso carbada kugu dhufanaya oo jirka yara jilciso waad garanaysa ninkii ilkahaas ka bixiyo oo xanuunkana yara damisa camal markii diyaar la noqday dhakhtarkii anigii hooyo ayaan qolka iskugu galnay maogtahay markuu iligii saa u taabtay waxay igu soo dega macaqa aniga ruuxaamaa qabaan male ruuxaamaa qabaan male
waxa igu soo degay ma garana hal mar maan booday ya iligana wuu iga jabiyey wixii la sheegaya waa run aniga hadda halkan South Africa aan joogo goos waxaan iskaga bixiyay 4 goos baan iskaga bixiyay afarta goos aan iskaga bixiyana wax xanuun aan dareemay ma laha laakiin ninka dhakhtarka xanuunka igu beeray ilaa hadda maskaxdaydu way xanuunaysaa ilaa maskaxay xanuunaysaa allah kulli xaal wuu jafay markuu jafay dhakhtar qumano ilkaha bisiiba la garan jiray wuu jafay iligu iga jabiyay intaan saa u kala tuuray ayaan albaabka furay baan soo cararay ya markaas imaamada hooyada iga soo dabooraday markay iga soo dabooraday waxay leedahay ayadoo daba ordaysa adiga xooga ilaa iyo 2 kilomitir 3 kilomitir meelahaas ayaan ka horeeya ayay waxay leedahay tuuga soo qabta tuuga cuningan waa tuug barbahan ka xaday adiga waxaan ka xaday oo garana waxaan ka xaday ma garana ilaa hadda tuuga soo qabta cuningan haddii mar dambe aad ilgaaga ii sheegato adoo mar dambe haddaan xanuun kaa maqlo taan kugu dhigi doono ya markaas ay daba ordaa way ina caladay way caysay way hawaatay ya tuug bay igu yeeltaa markaani harrahan iska fiirina waan naxsanahay horta sas baa igu jir sasta igu jirta midka ugu koowaad waxay tahay iligii i xanuunayo marnana mar dambe aan sheegin karin sababta hooyo waxay leedahay dambe haddaa sheegato bis waay ya dhakhtarka tii aan ku dhigana waa la ogaa waan kala tuuray alla maxaan dhib badnaa markaan yaraa alaa kulli xaal hareerahan waan fiirin waxaan isleeyahay maamadan tuug qabta ay leedahay ama mid waalanoo orday qabtaa oo maamada igu dhiibaa markaa dhakhtarka ligu celiya markaa aniga waan fakanaya cagaha wax ka day alaa kulli xaal sidaa u socotay sheekadii xaafadda markaan imaaday maamadii hooyo dadkii u sheegtay wixii dhakhtarkii ina dhex maray daawo xanuun baabi'isaan laqay markaan daawadii laqay ayaan saaxday markii aan saaxday ilaa amarkiis maamadii meel bay aaday gurigii cidla qofna ma joogo ilaa hadda ma garan karo sababta ayada waxaan soo kacay dhagax weyn oo gurigan la dhan oo idul saaran anigu idul saaran indhahan kala saaray dhagaxii wuu isaaran yahay weli sariirta waan ka dhacay waan gurguurtay albaabkaan ka baxay albaabka markaan ka baxay ilaa amarkiis xoogii iyo dhagaxii uu iga degay waan cararay markaan cararay baa waxaan ahaan jirnay in adeerkay oon aada u jeclaan jiray allah u naxariista geeriyooday asagii xaaskiisa gurigooda kama bixi jiray mar walba gurigoodaan joogi jiray gurigiis ayaan tagay markii aan tagay baa dhiig iga soo fukaday gooskii dhiig iga soo fukaday xanuun markaas ay ugu dambeysay laakiinse dhagaxaas ilaa iyo hadda qof aniga maskaxiyaan ii sheego misebo ii turjumo waan garan waayo gooskana meesha ku baaba'ay xanuunka meesha ku baaba'ay laakiin halkan markaan South Africa imaadaan iska saaray waan islaam walaalayaal intaas waa rabeen loo dagay till next time bye